madaxda shanta maamul goboleed ee Soomaaliya ayaa mowqif dhexe ka qaatay khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kaas oo xarka goostay dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay. kulan degdeg ah oo ay xalay qadka telefoonka ku yeesheen madaxda shanta maamul goboleed ayay ka soo saareen warmurtiyeed u muuqday inuusan waxba ka bedelin xiisadii maalmahan ka jirtay dalka. waxay maamuladu soo jeediyeen in khilaafka labada nin ee Farmaajo iyo Rooble lagu xalliyo miiska wada hadalka, taas oo ka dhigan inay khilaafkii u fasireen mid siyaasi ah, halka dhinaca Rooble looga arka khilaafka mid lagu hor istaagayo cadaalad u raadinta Igraan Tahliil Faarax. waxay maamuladu ku baaqeen in la ixtiraamo heshiisyadii doorashada iyo in kiiska Igraan Tahliil loo dhaafo hay'adaha ku shaqada leh iyadoo loo marayo qaanuunka dalka. wuxuu qoraalka maamuladu labada nin ee Farmaajo iyo Rooble ka wada dhigay eedeysanayaal, taas oo ka dhigan in Puntland iyo Jubbaland ka tanaasuleen mowqifkii ay markii hore ku garab istaageen ra'iisul wasaare Rooble. kal hore Puntland iyo Jubbaland waxay soo jeediyeen in toos loola safto ra'iisul wasaare Rooble, halka saddexda maamul ee kale ay qabeen in dhexdhexaad laga noqdo xiisadda jirta oo xal la raadiyo. kadibna Puntland iyo Jubbaland toos ayay u caddeeyeen mowqifkooda ah inay garab taagan yihiin ra'iisul wasaare Rooble oo uu jidka saxan ku socdo. laakiin marka la eego wada hadalkii xalay iyo qoraalka ay soo saareen, waxaa muuqata in labadaasi maamul uu mowqifkooda wax weyn iska bedelay oo labada nin ee Farmaajo iyo Rooble isku qaanad lagu riday oo meel dhexa laga istaagay xiisadda. maamuladu waxay iclaamiyeen inay 22 ilaa 23 bishan ku shiri doonaan magaalada Garowe si ay uga tashadaan xaaladda dalka iyo doorashooyinka. shirkan waxa uu ku soo aaday iyadoo xiisaddu ay kacsan tahay. ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamuladu waxay ku wada jireen golaha wada tashiga qaran, balse sida muuqata Rooble waa laga tashaday oo shirka noocan ah waxa uu Rooble ka dhigayaa in looga tagay inuu xiisadda qayb ka yahay. ma jiro gole ay madaxda maamuladu ku midaysan yihiin xilligan, waxaana uu shirkani noqon karaa mid sii xoojiya awoodihii ay dhawaan ku dhex samaysteen habraacyada doorashooyinka. siciidani inkastoo isaga iyo Axmed Madoobe laga soo celiyey mowqifkoodii halka dhinac ahaa, haddana shirkan wax weyn ayuu uga tari doonaa ololihiisa doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee 2021. waxaa muuqata inuu shirkani cayilinayo mashruuciisa oo uu muujinayo in ragga filla Soomaaliya isku haya uu gacantooda kala baxay hogaankii siyaasadda. balse dhinaca kale Dani waxa uu Farmaajo ka soo saaray god uu geliyo waqti hore, maadaama uu hadda ka badbaadiyey inuu kaligiis goodoon sii ahaado oo xitaa Rooble ayaa hadda meel cidlaha soo istaagay oo ay maamuladii gooni uga baxeen. qoraalkii xalay ka soo baxay madaxda maamulada laguma daabicin warbaahinta dowladda federaalka ah, taas oo ka dhigan inuusan Rooble ku qancin sida ay maamuladu u hadleen oo isaga iyo Farmaajo isku meel dhigtay. tallaabada ay xalay qaadeen madaxda maamuladu iyo haddii ay dhacdo inuu shirkaasi sii fogeeyo ra'iisul wasaare Rooble, waxaa macquul ah inuu abuurmo jawi kale oo ay Rooble iyo Farmaajo isugu soo noqon karaan oo ay ku midayn karaan aragtidooda, maadaama labadoodaba gacantooda lagala sii baxay awooddii dalka. sida uu Siciidani u ugaarsanayo marna waa u dan marna waa u daqar. maxay kula taadiga